haddii dadka Soomaaliland ku nool qaybay jabhada haysato dadka kalena waxa ku khasbanaan doonaan inay jabhada samaystaan iyaguna isku difaacaan maxamed abiibow isaaq inay jabhada noqdaan oo ay jabhada samaystaan hartiba ku kalifay laakiin adiga gadabiirsi ah awood aad jabhad ku samaysata malihid la haysta isaaq ay haystaan baa tahay laakiin wiilka dhulbahante iyo wiilka warsangeli waa daarood weynay ka dhasheen la soco niman isaaq ay maamuli karaan ma aha niman isaaq ay u dawladeen karaan ma aha dhulbahante iyo warsangeli taamaankaaga gali laakiin gadabiirsi waa la haystayaal kuwa waliba adigu aad ka dhalatay ee xildhibaanka aad u tahay jabhad iska daayay hargeysa lacag bay ku tagaan ninka kan mid noqdo dawladda Soomaaliya ayaa hargeysa lacag ku yimaada wuxuu ahaa wasiirkii maaliyadda Bayle $100,000 baa waxa looga qaaday in uu hargeysiye Boorama tago ma garanaysaa asagoo Canada jooga asaga afkiisa ka sheegay laakiin wiilka dhulbahante cid hargeysa lacag uga qaadanaysa ma jirto wiilka warsangelina cid hargeysa lacag uga qaadanaysa ma jirto maxamed abiibow gadabiirsi iyo ciise maanta waxay marayaan ninka raba inuu hargeysa taga inuu lacag ku tago baylaan ogeyn mid kale waxaan ogeyn asaguna ciise ah oo xamar ka yimid xilligii farmaajo xamar ka shaqayn jiray ayaa waxay yimaadeen hargeysa lacag baa laga qaaday adigu maanta ma tagi kartid xamar awood aad xamar ku tagta malihid jabuuti baad inta tagtay baa lagu xiray jabuuti buu tagay waa mucaarad laakiin wiilka dhulbahante awood buu wuxuu leeyahay inuu xamar tago wiilka warsangeli wuxuu awood u leeyahay inuu xamar tago laanu waa laandheerayaal daarood bay ka dhasheen laakiin adigu inan gumeed baatay isaaq inay jabhada noqdaanna annaga ku kalifnay maanta inay SNM dib jabhadahoodii ugu noqdaan annaga ku kalifnay ee gadabiirsi ciise waxba ma kalifi karaan gadabiirsi ciise iyo gabooye caloosha isaaq bay ku jiraan waa dad la haystayaal ah kuwa adigu aad ka dhalatay laakiin ogow hartiga waqooyi ku nool ee dhulbahantiye warsangeli waa laandheerayaal taa laabtaada ku hayso wiil isaaqana uma dawladeen karo nin daarooda taa ogow marka maxamed abiib waxaan ku leeyahay adigu dhaqankaagi iyo waxgaradkaagi baa waxa u shidan heystay ahayd aan ooyay albaabka ii xira nabadoonkaagi ama isinkii ugu sareeyay gadabiirsi baa jigjiga marti ku ah adiguna xildhibaan baa tahay waxgaradkaagi iyo aqoon-yahankaagi baa laga ilaaliyay inay burciyo hargeysa yimaadaan ma garanaysaa cuqaashaadii baa aan ooyay albaabka ii xira heystay ahayd baa u shidan Boorama gudaheeday ku dhex ooyaan kor bay u ooyaan kor waayo wiilal asaagooda u dawladeynaya gabdhaha gadabiirsi baa lagu dhex xoogaa meesha la Boorama gudaheeda kaba hadli kadib maxaa oran ka dhaa